xulka qaranka kubadda cagta dalkeena Soomaaliya waxa uu markii ugu horeysay adkaaday kulan ka tirsan isreebreebka koobka adduunka. Waxa uu ka adkaaday xulka qaranka dalka Zimbabwe. Kulankan ayaa ahaa mid ka tirsan koobka adduunka ee 2022 lagu qaban doono dalka Qatar isreebreebkiisa. Wareegga koobaad iyo lugta hore oo ka dhacday gudaha dalka inuu walaalaha nahay ee Djibouti ayaa waxa lagu ciyaarayay garoonka Alxaaji Xasan Guuleed Stadium. waxaana Soomaaliya hal iyo waxba ay ugu adkaatay xulka qaranka dalkaasi Zimbabwe. goolka xulka qaranka Soomaaliya 3 dhibcood ay ugu qaatay Zimbabwe waxa saxay Anwar Said Ali oo loo yaqaan Anwar Shakunda oo ciyaara kooxda Elman. lugta labaad ayaa waxa ay ka dhici doontaa gudaha dalka Zimbabwe. macalinka xulka qaranka dalkeena Soomaaliya oo ka soo jeeda dalka Ghana Bashir Haywood ayaa waxa uu gaaray guushiisii ugu horeysay tan iyo markii uu qabtay xulka qaranka dalkeena Soomaaliya. guusha Soomaaliya ayaa sidoo kale ah tii ugu horeysay oo ay ka gaarto tartan isreebreeb ah tan iyo sanadkii 1984 xilligaasi oo ay ka adkaatay Kenya kulan ka tirsan isreebreebka koobka qaramada qaaradda Afrika. sidoo kale waa guushii ugu horeysay oo tartan caalami ah ay gaarto Soomaaliya tan iyo 2009 xilligaasi oo hal iyo waxba ay ugu adkaatay Ethiopia. guusha ugu dambeysay ayaa tii ugu weyneed oo ay gaarto Soomaaliya taariikhda intay ciyaaraysay kubadda cagta, waxaana ay ka adkaatay hal iyo waxba kulan isreebreebka koobka adduunka looga qayb galayo 2022 lagu qaban doono dalka Qatar, iyadoo xulka qaranka dalka Zimbabwe 2 bilood ka hor uu ka soo qayb qaatay koobka qaramada qaaradda Afrika oo wali Soomaaliya aysan ciyaarin. Saciid Cabdi Heybe waa macalinka xiriirka kubadda cagta Soomaaliya u qaabilsan soo ururinta ciyaartooyda dibadaha ka ciyaarta. waana macalin soo ururiyay 11 ciyaartooy oo hadda matalaya xulka qaranka dalkeena Soomaaliya. dalalka uu ka soo ururiyay ciyaartooyda waxaa ka mid ah USA, UK, Italia, Norway, Netherlands, Finland, Qatar iyo Canada. ciyaartooydan ayaa waxa ay qayb weyn ka yihiin guusha xulka qaranka dalkeena Soomaaliya uu ka gaaray dalka Zimbabwe. guushaasi xulka qaranka dalkeena uu gaaray ayaa waxa sabab u ah qaar ka mid ah xidigaha qurbaha ka ciyaarto oo looga yeeray markii ugu horeysay in ay matalaan dalkooda hooyo. waxaana ka mid ah xidigahaasi Cabdi Maxamed waxa uu ciyaaraa kooxda Memphis oo ka dhisan dalka Mareykanka, waxaana uu ku yahay amaah iyadoo milkiyada ciyaaryahanka ay leedahay kooxda New York City oo ka mid ah kooxaha ugu waaweyn dalkaasi Mareykanka. 25 Oktoobar 1996 waxa uu ku dhashay magaalada Nairobi ee dalka Kenya. waxa uu ka mid noqday xidigaha guusha weyn u soo hooyay dalkeena Soomaaliya ee ka yimid qurbaha. waxa uu soo ciyaaray kooxo fara badan oo heerarka dhalinyarada ah, hase yeeshee ugu dambeyntii waxa ka heshay kooxda New York City oo ka mid ah kooxaha ugu awoodda badan dalkaasi Mareykanka. waxa uu ka ciyaaraa garabka midig iyo garabka bidix ee difaaca. Yunis Farah waxa uu ku dhashay dalka Ingiriiska 4 Sebtembar 1999. waxa uu ka soo ciyaaray isla dalkaasi Ingiriiska. Southampton 18 jirada ayuu ka mid ahaa Yunis, iyadoo sidoo kale uu ka soo ciyaaray dalka Norway koox ka dhisan oo lagu magacaabo Trysil. 3 Abriil isla sanadkan 2019 ayuu si xur ah ugu tagay kooxda Trysil oo uu ciyaarayay Yunis. waxa uu ka ciyaaraa garabka bidix ee difaaca. Axmed Saciid Axmed 4 Julaay 1998 waxa uu ku dhashay dalka Finland. yaraantiisii waxa uu ahaa mid jecel kubadda cagta oo hadda magac uu ka sameeyay tan iyo markii uu ku soo biiray kooxda Fantan oo ka dhisan isla halka uu ku nool yahay. Axmed waxa uu ka mid yahay xidigaha kooxda ay ku duusho, waxaana kooxda koobaad ee Fantana uu ku biiray Maarso 28 2019 iyadoo uu saxay heshiis hal sano ah, balse hadda kooxda waxa ay u soo bandhigtay in heshiis cusub uu saxiixo, balse waxa uu soo safray waajibaadka qaranka dalkiisa hooyo. waxa uu ka ciyaaraa difaaca dhexe, waxaana uu ciyaaraa kooxda Fantan ee ka dhisan dalka Finland. Cabdulcasiis Yuusuf 5 Oktoobar 1999 ayuu dunida ku soo biiray. Cabdicasiis waxa uu ciyaaraa kooxda Halifax Wanderers oo ka dhisan dalkaasi Canada. 4 Abriil 2019 ayuu ku soo biiray kooxdaasi.
waxaana ay ka mid tahay kooxaha ka ciyaara horyaalka dalkaasi Canada ee Premier League. waxa uu ka ciyaaraa garabka midig ee weerarka. Fahad Ismaaciil waxa uu ku dhashay dalka Ingiriiska 2 Sebtembar 1996. hadda waa koox la'aan balse waxa uu u soo ciyaaray kooxo badan oo ay ka mid tahay kooxda Yonova oo ka dhisan dalkaasi Ingiriiska kana mid ah kooxaha heerka hoose ee dalkaasi. waxa uu ka ciyaaraa difaaca qadka dhexe waxaana uu iska diiday dhowr kooxood oo u soo bandhigay heshiis uusan ku qancin. Cabdulsamad Cabdulaahi 19 Janaayo 1997 waxa uu ku dhashay magaalada Tilburg ee dalkaasi Holland. waxaa yaraantiisii uu ka mid noqday kooxda Den Bosch oo ilaa iyo hadda uu ku sugan yahay. waxa uu ka ciyaaraa qadka dhexe iyo garabka midig waxaana kooxdiisa Den Bosch ay ku xusuusataa gool qurux badnaa uu ka dhaliyay kooxda yaryar ee PSV Eindhoven oo ka mid ah kooxaha loogu jecel yahay dalkaasi Holland. Agoosto 9 2019 ayuu ku biiray Den Bosch waxaana uu dhici doonaa heshiiska uu kula joogo kooxdaasi 30 bisha 6 2020. waxaana kooxdiisa ay qorsheynaysaa in heshiis cusub ay ka saxiixdo dhowaan. Cumar Maxamed 18 May 1996 waxa uu ku dhashay Muqdisho, Soomaaliya. waa kubad sameeye xirfadiisu aad u sareyso waxaana uu yahay wiilka sida quruxda badan u qaabeeyay goolkii uu ka dhaliyay xulka qaranka dalkeena Soomaaliya Zimbabwe. Cumar Maxamed waxa uu ka mid yahay ciyaartoyda kooxda kubadda cagta Greenville ay ku duusho. waxa uu ka ciyaaraa booska weerarka ee qadka dhexe ah lambarka 10 ayuu u xirtaa xulka qaranka dalkeena Soomaaliya. Abel Gigi Mohamed waa ciyaaryahan difaaca dhexe ka ciyaara waxa uu ciyaaraa booska 6. hadda waa koox la'aan balse waxa uu ka soo ciyaaray horyaalka Talyaaniga. waxa uu u soo ciyaaray dhowr kooxood oo ay ka mid tahay kooxda Viozane iyo kooxda Parma. waxa uu ka dheelay horyaalka Serie A dalkaasi Talyaaniga iyadoo sidoo kale kooxda Parma sidoo kale uu u ciyaaray koobka Champions League ayuu sidoo kale ciyaaray waxaana uu ka mid ahaa xidigo da'yar oo halkaasi ka soo baxay. waxaa saaxiib dhow yihiin Gianluca Lapadula oo weerarka ugu ciyaari jiray kooxda kubadda cagta Milan balse hadda ka tagay kooxdaasi waxaana uu ciyaaraa hadda kooxda kubadda cagta Lecce ee ka dhisan horyaalka Serie A dalkaasi Talyaaniga. saaxiibkii Lapadula Abel waxa uu ka soo ciyaaray horyaalka dalkaasi Slovenia oo ku soo guuleystay horyaalka heerka koobaad ee dalkaasi. waxa uu ku soo laabtay isla gudaha dalka Talyaaniga oo uu soo ciyaaray ilaa iyo 6 kooxood oo ka dhisan halkaasi. Axmed Cali Maxamed waa kabtanka xulka qaranka dalkeena Soomaaliya xidigaha hadda u matalaya ayuuna hoggaan u yahay. waana kabtankii ugu horeeyay ee Soomaaliya ku hogaamiya inay adkaato markii ugu horeysay kulan ka tirsan isreebreebka koobka adduunka. sawirka idin muuqda waxaa ku weheliyay walaalkii Maxamuud Cali Maxamed. waa 2 wiil oo walaalo ah una saftay xulka qaranka dalkeena Soomaaliya. kabtanka waxa uu ka ciyaaraa koox lagu magacaabo The Pearl oo ka dhisan dalkaasi Qatar waxaana uu ka mid yahay xidigaha guusha lama iloobaanka u soo hooyay xulka qaranka kubadda cagta dalkeena Soomaaliya oo ka adkaaday xulka qaranka dalka Zimbabwe oo ka mid ahaa dalalkii ka qayb qaatay 2 bilood ka hor koobka qaramada qaaradda Afrika oo lagu qabtay dalkaasi Masar. hase yeeshee Soomaaliya ayaa ka adkaatay xulka qaranka dalkaasi Zimbabwe oo aan weli Soomaaliya aysan ka qayb galin tartanka koobka qaramada qaaradda Afrika.